saraakiisha booliska ee ismaamulka Kitui ayaa xabsiga u taxaaway haweeney ku jirta dhaxaadka oo lagu eedeeyay dilka wiilkeeda oo 10 sano jir ahaa. goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in hooyada ay wiilkeeda ugu taqallustay kadib markii uu ka lumiyay lacag gaaraysa 100 shilin dalka Kenya ah oo u dhiganta $1. dhacdadani ayaa maanta laga soo tabiyay agagaarka Kafeta ee bartamaha magaalada Kitui. waxa ay dilka wiilkeeda u adeegsatay bakoorad ka hor inta aysan baangad u soo qaadanin. wiilka yar ayay u dhiibtay lacag si uu u bixiyo deen iyada lagu lahaa, balse wuxuu dib ugu soo laabtay guriga isagoo sheegay inuu lumiyay lacagtii. gudoomiyaha xaafadda Kafeta Jamie Kalua ayaa xaqiijiyay dhacdadan naxdinta leh, isagoo sheegay in la bilaabay baaritaano la xiriirta arrintani. ugu dambeyn meydka wiilkaasi yar ayaa loo qaaday goobta meydadka la dhigo ee isbitaalka weyn ee ku yaala dowlad deegaanka Kitui County. Abdiraxmaan Atore, 5TV, Nairobi.